Dhamay Maxamuud Muuse Bile Fardafuul taliyaha saldhigga dhexe ee Garowe waxa uu si buuxda warbaahinta qaybaheeda kala duwan uga warbixiyay maxaabiis maalmo ka hor laga sii daayay saldhigga dhexe ee Garowe taasoo bulshada Puntland si weyn u hadalhayeen murana ka dhaxdhalisay ilaamaha ammaanka Puntland si cadna u sheegay habka dhacdadaani 26 bishii 2017 waxa saldhigga kormeer ku yimid taliyaha qaybta gobolka Nugaal maxaabiistii markuu jeekibay wuxuu weydiiyay wiilashatan meesha ku xidhan dad waalidiin ay qalqaynayaan leeyihiin arday baa isku yaabsay wala dhigatay markaa kadib wuxuu weydiiyay gal dacwadeedkii dadka aan ka hayay waxa uu sheegay wax gal dacwad aan u hayn wax agsiibada aan ku hayn intaas uu sheegay gudoomiyaha maxkamaddu uu ogyahay taliyaha ciidanka booliiska Puntland waa qadbaan u تريه غيبت أوضح قايسيدها يجري قايسيدها كده واحد عضي كيسكي دعوة خطوة جلوس كدعوة Fardafuul waxa uu sheegay siideyntii maxaabiista kadib mar kale in amar lagu siiyay inuu soo qabtaan ayna soo qabteen kana codsaday in si dhaqso leh loo horgeeyo maxaabiistan cadaaladda waxa amar dib lagu siiyay in dadka la keeno oo soo qabto أحنا نوقع سكولنا نقطة نقص وأنا بريء نقطة نقص يا سيدي وحنا واحد نقطة سكولك وين كانوا شيء وقوة وكأني وسؤالني وحنا رباط كسيني الدين مركي أنا كنا شايب الله كيس كوي كنت أقول يدين بوي ساعة على كسلك ويه سلك شقة كسوقته فتكبر سوقته بناء حريد السعيار ما qofku waa inuu dambi leeyahay oo kiis galo taliyaha saldhigga dhexe ee Garowe waxa uu cadeeyay inuu jiro dabagal adag oo ay ku hayaan xabsiyada hay'adaha xuquuqul insaanka iyo cadaaladda Puntland aysan u suurtoobayn in muwaadin la iska hayo sharci la'aan anaga control baan saaran bay hay'adaha xuquuqul insaanka tahay haday tahay taliyaasha madaxda mas'uuliyiinta naga sarreysa kullu jeeka bilaaway halka wax waa la keenaa oo biyaal galiya استمتع بالديارية قلب بليه كيس كسال قلبيا أديو كودا قل كيس كذا زي محكمة كاتشو دم بكمري لكن وقت ما قالوا هو هين أصلاً تفسر صار دري ما قاس أنا من رسول قلك كله وحاولنا واكن لي عندي كيس كوب صح ضيلا لنا هو يغير بسوينا دير بده فدي إن شاء الله بالله تعالى dhalinyaradan waxa horay u soo xiray taliska la dagaalanka argagixisada iyo mukhadaraadka Puntland oo ku eedeeyay falal amniga lid ku ah